asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta laygu xiran sideetiin mii fiicantiin xaaladiina ka warama aan waa idin wanaagsanahay subax wanaagsan wadax salaad subax waa 5:20 saanuu jawiga hargeysa subaxnimadkii xilliga salaada subax uu eegyahay weli waa mugdi mugdi waan soo kacay ahayd si aan dee salaada subax u tukado soo halkan waa qolkeygii tuwaleedkan baleysiyo waxaa laygu yiraahday qofay waa xamaan badanta waa qashin badan tahay bal tuwaleedkan qashinkaaga oo dhan saara iyo shoobinkaagii oo dhan marka alaabteydii kareemyadeydii cadaradeydii wixaygii oo dhan halkan iswada dhex yaala ma ujeedaan marka hadda waxaan rabaa inaan musqusha gaso aan soo cadaysto skiinkeerkeyga subaxnimadkii samaysto soo halkan ay kareemyadeedu ii yaalaan aan kasoo qaatay kareemyadeydii aan dee doonayay inaan marsado kadibna way kana musqushan yimaaday amba baatika kadib waxa waaye dee ugu horeyn waxaan sameynaa waa cadaysanaya ani waxaan ku dhahay xitaa dawadeedii cadaygan isticmaalayay wax kasta burushkayga cadayga waa sitee ma fahantiin qof noolaa ahay waxaan isdhahay waxaaga hore kasii qaada ma fahantiin marka way kana waan cadaystay ahayd kadibna waxa waaye waan weysaystay kadibna face washka ujeedaan oo sreefa miyaa la dhahaa wax noocaasa baan wejiga ku maydhaa ani imika ilaa bishii shanaadba kiyan wejiga ku maydhay waa face wash aad iyo aad u macaan u fiican wejigaygu dry iyo sensitive buu ahaa face washkan inaba caadi ma ahan yacni wejigayga wax weyn uu u taray markaan wejiga face washka kusoo dhaqdayna waxaa marsaday bahalka yaroo toonarka oo kale ah oo maxaa la dhahayay shirkadda Snail la dhaho ay samaysay haddana waxaa marsadaa kareemkiisa oo Snailkana kareemkan iyo toonarkiisan inaba caadi ma aha toonar ma aha waxaa ujeedaa essence baa la dhahaa inaba caadi ma aha wejigu wuu kuu dhalaalaa quruxuu kuu siinaa naacin buu kuu noqonaa smooth smooth inaba caadi ma aha wejiga dhanaa kuu ifaa markaa marsatid waxaa lagu leeyahay qofey maxaa wejiga marsataa marka waa kaas intaa markaa marsada kadibna waxaa soo marsaday ahayd kareemkay qoraxda amba cadceeda baan wejiga marsadaa ma fahantiin haddaana hadda ku bilaabin maxaa la dhahay maalinteeda skin care waa ilooba ma dhowto waa mashquula ma fahantiin soo waa kaasaa kareemadeeda wixiigaan soo marsaday kadib way kana qolkiiaan kusoo noqday salaadii subax baan dee aan hadda aan isku diyaarinayaa oo aan tukanaya ma fahantiin marka way kana sijeedeedii wixiigaan soo qaatay dharkeygii salaada subaxaan soo xidhay salaadiin tukaday ahayd kadibna waan iska yar tasbiixsaday quraan yarba akhristay waan yar cibaadaystay ma fahantiin halkaa waddankeena wuxuu ku fiican yahay waqtiyada salaada waqtiyada aad u fiican ay ku yaalaan salaad subax waxba kaama tagayaan because xilli horaa la seexanaa kadibna xilli horaa la toosayaa marka kaasaa markaan salaadii iyo tasbiixdeydii iyo quraankaygii iyo cibaadadeydii aan soo dhammaystay jikadaan soo galay waxaan rabaa dee inaan quraac kasoo tuuro marka waa kaasaa shooladii aan daartay waxaan soo saartay ahayd geeskaa shishe kildigii dee aan shaaxa ku karin lahaa geeskan sakana waxaa soo saartay waa daawihii oo aan laxooxda ku dubi lahaa dhac waxaan soo saartay alqabinkiisii soo waxa waaye dhinacna shaaxiyaan ka karina dhinacna laxooxdiyaan ka dubaaya soo waa kaasa daawihii wuu iisoo diirdiira wuu soo kululaanaya marka hadda shaaxiyaan sukariyey ahayd xawaashaan ku dardaray sinjibiilaan ku shubay kuley kamarada si fiican umay qabanine shaaxii midoobaayaan ku shubay dabkiyaan ka damiyey waan daboolay marka falaasadiinaan ku shubunba ii harsanayd marka halkan waxa waaye daawihii iga soo kululaaday ahayd marka laxooxdii haddana dhinaca kale aan ka dubaaya bahal laxooxa oo quruxdeeda iyo udgoonkeeda la yaabay oo 150 dhir oo la isku dardaray laga sameeyey aan ku dubayaa ma fahanteen waxa waaye xasuus baan galay waagii yaraanteedii oo hargeysa joogi jiray oo inta xilli hore la kaco aan reerka dhan quraacda u samee daaradaha masax daarada fiiqkan samee waxaan ku aan dib u soo xasuustay marka ruutiinkii waagaas hadda dib u xusaayaa marka way kaasa halkana waxaan ku raadiyay saa ujeedaanba bahal laxooxoo khatara dee saa ujeedaan kor iyo hoos si fiican uga casaatayoo si fiican dee nice u noqotay aan ku dubayaa ma fahanteen daawahan maxaan waaye waay wax ku soo dubay yaa marka waa kaas halkana waxaan ku yiri laxooxdii oo dhan soo dubtay waa kaasa laxooxda quruxdeedii ayaa idin tusinayaa si u qurux badan tahay ismaan lahaynba waad la keeni doontaa daawahan waxaan islahaa dee maadaama daawaha noocana aad muddo ka raagtay malaha garan maysid sida loogu dubo laakiin dee waxa waaye waan xasuustaa weli sidii wax loogu dubayay marka waa kaasa saa ujeedaan bahal laxooxo qurux badan aan saaka soo dubay ahayd marka waa kaasa laxoox dubowgiaan soo dhammaystiray markaan laxooxdii dubitaanka usoo dhammaystiray halkan banaan waxaan ku samaysanayaa
beed yar oo aan rabo dee inaan laxooxda ku cuno. Marka waxaan sameeyey maqliyaan dabka soo saartay, saliid yar baan kusoo shubtay, basalaan si yar yar usoo googoostay baan marka aan saliidii wax yar ku yara shiilay. Kadibna waxaan kusoo darsaday karoot, barbarooni iyo jeex yar oo tamaandho nooca akhtarka ah oo weli bislaanina aan kusoo riday. Kadibna intii yaasaa ujeedaan aan isku yara shiilaya, isku yara shuutaynaya amba isku hurinaya. Kadib waa kana wax dhowr daqiiqo kadib markay dee isku soo shiilmeen waxaan kusoo darsaday wax yar oo oregano ah iyo wax yar oo milix ah iyo wax yar oo xawaash yar oo kalaana waan ku darsaday ahayd. Marka waa kaas oo isku yar walwalaaqaya oo isku yara shiilaya. Yaraanteedii aan saa u samaysan jiray beedka marka tii aan xusaaya ma fahanteen. Marka intaas markii aan ku daray waxaan sameeyey beedkii aan soo qaatay 2 xabadood oo beed ah baa saa ujeedaan aan ku dhex jebinaya. Kadibna dee intan baan si fiican isugu shiilaa isugu walaaqaya. Waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo sida quruxda badan leh aad ii daawataan ii support gareysaan aad iigu xidhan tihiin waad ku mahadsan tihiin daawashada fiidiyoyaashayda. Fiidiyogana markuu idin soo gaaro haddaad ka heshaan like ii saara insha Allah. Asxaabtiina ila sii share gareeya si asxaab sidiin oo kale u qurux badan ay iigu soo xidhmaan dee oon u helo insha Allah. Thank you for watching my videos baa idin leeyahay. Beedkii khudradda wixii dhan aan isku soo shiilay. Kadib saan ay diyaar iigu noqdeen saan markay noqotay dabkan ka damiye waa diyaar. Marka waxaan sameeyey quraacdeedii aan soo diyaarsaday ani shaaha caadiga ma cabo. Green tea aan ka cabaa wax shaaxaba marka koob green tea aan halkaan kusoo samaysto kusoo diyaarsaday. Bileerkaan hadda waxaan kusoo ritay quraacdeedii oo ka kooban 2 xabadood oo laxooxaan bacanjeera ah iyo beedkii khudraddii aan isku soo shiilay. Intana quraac ahaan dee u diyaarsaday oo aan ku quraacday bay ahayd. Markay barqadii ay ahayd ee hooyadii wixii noo samaysay keeg bay noo qastay. Keegga halkan gacanta lagu qaso anigana ma aqaan ka gacanta lagu qaso. Hooyo keeggii noo soo qastay kadibna ovenkaan gashanay. Kadibna markuu noo soo shiilmay keeggii ovenkaa ka soo bixinay saan uu kusoo baxay ahayd. Saa quruxda badan u jeedaan uu noogu soo shiilmay keeggu. Marka waxaan sameeyey ahayd keeggii aan jarjaray. Markii oo shanta uu qofku quraacdo amba 6da subaxnimo uu quraacdo laazim waa inuu dee helaa nus saaca oo uu cuno barqadii. Marka keegana anaga saaka kuma saacaynayni waayo tad 6da quraacatid ilaa 12 aad gaajoonaysaa. Wax yar oo markaa u dhexeeyaba way dadku cunaan caadiyiinba. Marka anaga keegana maanta kuma saacaynayni markaa keegga xalwad yar buskud yar biyo yar intaas halkaa kusoo diyaarsaday nus saaca ahaan. Halkan aan keeggayga iyo xalwadeydii aan isla dhacay oon isku cunay ma fahanteen macmacaanka adduunkan ka dhargay. Fiidiyowga gabagabuu joogaa meelasha sidan oo qurqurux badan oo Hargeysa loo dalxiis tago haddaad garanaysaan commentiga igu soo sheega insha Allah. Wadan mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan. Bye bye see you soon insha Allah.